arooryo suubanidilkiin baa khayaartana dhegaysatay waa 3 Oktoobar saacadda Afrikada Barina haatan waxay tilmaamaysaa 7 gowa wararkan idaacaddan subaxnimo idinku haynana waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo sheegtay inay qaadanayso mas'uuliyadda qaladaadka go'aanada dhaqaale ee xukuumaddeedu gashay muddadii koobneed ee xilka haysay xukuumadda Itoobiya oo sheegtay inay xabad joojin diyaar u tahay hase yeeshee ku miigan inay gacanta ku dhigto erboodyada gobolka Tigray ku yaal matuhun baa jiray intaa kula uga soo degto TPLF inta dagaalku socday dawladda Itoobiya waxay leedahay dawlada aanay magacooda aanay sheegin oo raba in ay burburiyaan qarannimada Itoobiya ayaa dagaalka ku jira wax cad may keenin si cadna uga may hadlin magacada dalalka ay sheegayaan may sheegin ololaha wacyigelinta cudurka kansarka naasaha ku dhacay bisha Oktoobar iyo duruufaha dumarka dunida saddexaad Soomaaliya iyo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka wada hadlaya inay iska garabsadaan dagaalka ay al-shabaab kula jiraan wararkii ciyaaraha inta dheer soo saaraha barnaamijku waa Axmed Badaran oo Axmed Nagaashiin oo idin la socodsiinaya subax wanaagsan saaxiibayaal واتاي قضبدا سو فاهفاهسanahay noo dambeeyana marka hore dhageystayaal warkii dunida iyo Cabdifataax Ibraahim Cagayare Cabdifataax mahadsanid Axmed Ra'iisul Wasaaraha Britain Liz Truss ayaa ku adkaysatay in xisbigeeda Conservative-ka ay ku hogaamin doonto doorashada guud ee soo socota ee lagu wado in lagu qabto muddo 2 sanadood gudahooda walow qaar ka mid ah xildhibaanada xisbigeeda kala kulmayso cadaadis ah inay xil ka banayso maray ka la hadlaysay BBC-da ay raaligelin ka bixisay khaladaadkii horseeday in suuqyada ay qalalaase galaan iyo inay hoos u dhacdo qiimaha lacagta sterlinka hase yeeshee waxa ay sheegtay inay si degdeg ah u saxday khaladkaasi wasaaradda gaashaandhigga ee Britain ayaa uga digtay duuliyaashii hore ee militariga dalkaasi ee howlgabka noqday in ay khibradooda la wadaagaan waddanka Shiinaha saraakiisha reer galbeedka ayaa sheegaya inay rumaysan yihiin in ilaa iyo 30 duuliye oo hore ay Shiinaha tageen si ay u tababaraan xubnaha militariga dalkaasi diyaarad dagaal oo leedahay oo uu leeyahay waddanka Ruushka ayaa ku burburtay dhisme la degan yahay oo ku yaal magaalada koonfurta dalkaasi ku taal ee Yeysk iyadoo halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof muuqaal bartaas laga soo duubay ayaa muujinaya dhismaha oo holcaya qiiq madowna oo halkaasi ka baxayo barta ay diyaaraddu ku burburtay golaha midowga Yurub ayaa waxa uu wadaa in uu soo bandhigo tallaabooyin degdeg ah oo ay ugu talagaleen in ay ku xakameeyaan qiimaha gaaska ee sabaynaya Yurub waxaa la filayaa inay soo bandhigaan hab xadidaya qaabka looga ganacsado suuqyada sidoo kalena wax looga bedelaya qiimaha gaaska dabiiciga xilli aad looga cabsi qabo inay sare u kacaan kharashaadka lagu bixiyo tamarta iyadoo ay suuragal tahay in gaaskaba uu hakad ku yimaado xilliga qaboobaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa u muuqanaya inuu ku kala qaybsan yahay in ciidamo caalami ah loo diro waddanka Haiti iyo in kale si ay dib ugu soo celiyaan kala dambeynta kadib markii koox burcada oo awood badan ay la wareegeen dekedda ugu weyn dalkaasi Mareykanka iyo Mexico ayaa soo gudbiyay qabiil qoraal lagu taageerayo samaynta ciidamo noocaasi ah hase yeeshee Ruuska iyo Shiinaha ayaa arrintaasi ka cagajiiday ugu dambeynna dowladda Japan ayaa sheegtay in cunaqabateyn dheeraad ah ay ku soo rogayso Kuuriyada Waqooyi sababo uu wasiir sare oo dalkaasi ka tirsan ku tilmaamay falalka daandaansiga ee Pyongyang ay ku khalkhalgelinaysa ammaanka dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ayaa si isdaba jooga tan iyo bishii Sebtembar waxa ay u tijaabisay gantaalo ridda dheer oo ay dul marisay badda Japan warka caalamkana waa nageynta Axmed aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdifataax Ibraahim Cagayare warkii subaxnimo inoo marinay ayuu kaasi ahay dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka aan ku bilaabay dhageystayaal sidii aad warkaba ku maqlayseen ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Liz Truss ayaa ku nuuxnuuxsatay in iyadu xisbigeeda Conservative-ka ee talada hayo hoggaanka u sii hayn doonto tan iyo doorashada dalkaasi ka dhici doonta 2 sano kadib walow cadaadis badani kaga imanayo baarlamaanka oo ah inay iscasisho waraysi ay BBC-du la yeelatay hase yeeshee raaligelin kaga bixisay khaladaadka keenay in suuqa dhaqaalaha ee dalkaasi baaxaadego oo qiimihii giniga sterlinkuna uu hoos u dhacay waxayna intaa ku dartay inay si dhaqso ah wax uga qabatay arrimahaasi isla markiiba Axmed Badar oo waraysigaasi dhageystay wararkana aad ula socday ayaa haatan stuudiyaha ila fadhiyo faahfaahinta inoo haya Axmed
nagashow sidaa sheegtay ra-iisul wasaare Liz Truss waxay aqbashay mas-uuliyadda khaladaadka dowladdeeda ay gashay ee dhanka istaraatiijiyadda dhaqaalaha dalkaasi lagu samato bixinayo tan iyo intii markaasi xukunka ay la wareegtay waxayna sheegtay inay doonayso in raaligelin arrintaasi iyo istaraatiijiyad xumada ka timid dowladdeeda intii ay jirtay ay markaasi ay bixin doonto xilli ay la hadlaysay b b c da waraysi ay siisay ayaa waxa ay markaasi sheegtay in ay sidoo kale doonayso in khaladaadkaasi imika sida loo sixi lahaa ay falkeeda gasho waxay hadalkani jeedisay ama hadalkani sheegtay xilli Jeremy Hunt oo isagoo ah wasiirka dhaqaalaha cusub uu sheegay in dhaqaalaha dalkaasi Britain istaraatiijiyad cusub oo lagu badbaadinayo markaasi ay soo dejin doonaan waxa ay markaasi ra-iisul wasaaraha iyadoo dhankeeda sheegtay in intii xilka ay haysay aysan wax walba ay wanaagsanaa ay markaasi ahayn wax toosan balse ay doonayso in khaladaadkaasi imika ay saxdo waxa ay sidoo kale sheegtay in ay ka go'an tahay sidii mudnaanta loo siin lahaa dhaqaalaha dalkaasi Britain samata bixintiisa waxaa markaasi ay ra-iisul wasaaraha dalka Britain ay sheegtay in ay sidoo kale ka go'an tahay sidii hoos loogu dhigi lahaa canshuuraha dhaqaaluhuna markaasi loo kobcin lahaa si dhaqaalaha dalkaasi Britain uu noqdo dhaqaalo markaasi xasiloon watay axmedow haddaba xisbiga ra-iisul wasaaraha xubnihiisu waa conservative-ka dhankoodu maxay ka yidhaahdeen arrintan iyo qaabka ay ra-iisul wasaaruhu u maaraysay durbaba waxaa ra-iisul wasaaraha soo wajahay axmedow cadaadiska uga imanaya xibnaha xisbigeeda oo qaarkood wata ku baaqaya inay iscasisho 5 ka mid a xibnaha xisbigeeda ayaa waxay si cad u sheegeen inay doonayaan ra-iisul wasaaraha xilka ay ka degto xilli ay markaasi saxaafadda ay kula hadlayeen inkastoo aan markaasi ra-iisul wasaaraha muddo sanad ah gudaheed aan laga keeni karin codka kalsoonida haddana waxaa jira cadaadis ah inay xilka markaasi ka degto hase yeeshee waxaan weli markaasi heshiis lagu ahayn ama aan muuqan cidda bedelaysa Mrs Truss haddii xilka markaasi laga tuuro wasiirka gaashaandhigga Ben Wallace ayaa isagu waxa uu beeniyey warar sheegayay inuu doonayo in ra-iisul wasaaraha haddii is casisho uu xilka markaasi isaga bedelo oo isaga ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain uu noqdo aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed beder oo faahfaahintaasi ina siinayay dhegaystayaale weli halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da bal haatan aynu afrika ku soo noqonay dowlad deegaanka soomaalida dalka etoobiya iyo xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa ka wada xaajoonaya sidii ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ay sheegeen inay kula jiraan ururka al-shabaab waxaana jigjiga socdaal ku tegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminayo afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha farxaan maxamed jimcaale oo ujeeddada socdaalkaasi faahfaahinaya ayaa ismaaciil burgaaba u warramay ismaaciil waad mahadsan tahay ujeeddada safarka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo wafdigiisa halkan jigjiga caasimadda dowlad deegaanka soomaalida ay u yimaadeen waxay tahay runtii horta marka ugu horeysa maadaama ra-isul wasaare safarkii ugu horreeyey ee etoobiya uu ku yimid ay tahay oo uu kaga qaybgalayay shirkii caalamiga ah ee Tana Forum oo ahaa shir looga hadlayay caqabadaha amniga ee haysta qaaradda Afrika ayaa si la mid ah sida aad ka warqabto Soomaaliya waxa hadda ay ku jirtaa dagaal ka dhan ah kooxda argagixisada ee al-shabaab oo dowladda Soomaaliya ay ilaamisay shacabkii Soomaaliyeedna ay u istaageen oo la doonayo in lagu dabargooyo kooxdaasi gobolkan marka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo xuduud dheer la leh Soomaaliya wadanka saameyn ku leh dagaalkaasi ayuu ra-iisul wasaaruhu u arkay in horta muhiim ay tahay si madaxweyne Mustafa uu halkan ula kulmay mas'uuliyiinta dowlad deegaanka iyo qaybaha kale duwan ee bulshada oo runtii uu kala hadli lahaa bal sidii la isaga kaashan lahaa arrintaasi in caawana cashadii xarunta madaxtooyada loogu sameeyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha labaduba waa ay ta'kiidiyeen mar kale waxay ku celiyeen in ay iska kaashan doonaan sidii kooxdaasi dhibaatada ku haysta dadka Soomaaliyeed labada dhinacba soodinta markaad eegto oo ku cisho dhaweed halkan xitaa saameyn ku yeeshay sidii la isaga kaashan lahaa oo loola dagaali lahaa gacanna ay u siin lahaayeen dowladda Soomaaliyeed wayahay intiina imanin jigjiga waxaad soo marteen dowladda dhexe ayada laftigeeda wada hadal baa dhex maray ra-iisul wasaaraha wafdigiisa iyo dowladda federaalka waxyaabihii lagu wada hadlay ee lagu heshiiyey maxaa ka mid ah cilaaqaadka u dhaxeeya labada wadan ee Itoobiya iyo Soomaaliya runtii oo haddii aad xasuusato bishii hore dabayaaqadeedii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa isna halkan wafdi uu hogaaminayay booqasho rasmi ah ku yimid oo la kulmay ra-iisul wasaaraha Itoobiya sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre isna intii uu ku sugnaa shirka madasha Tana waxa ay si gooni u wada kulmeen ra-iisul wasaare Abiy oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa
xiriirka ka dhexeeya labada wadan ee dariska ee Soomaaliya iyo Ethiopia oo runtii ah mid soo jireen ah gaar ahaan sida la isaga kaashan lahaa arrimaha xagga ganacsiga laakiin ay ugu muhiimsan tahay mid amniga oo runtii u ah mid ahamiyad weyn ugu fadhido gobolka ma laga wada hadlay bilowgii dowladdan federaalka Soomaaliya iyo dowladda Abiy Ahmed xukuumaddiisa iskuma ay fiicneen kadib boqoshadii madaxweynaha oo ku tagay Masar oo kale ma laga wada hadlay arrimihii khilaafka keenay ee dowladda Ethiopia laga yaabo inay ka xumaato khilaaf u dhexeeya horta Soomaaliya iyo Ethiopia meel uu maaragtay ka jiray anigu ma ogi Ismaaciil afkaadan ka maqlayaa Soomaaliya iyo Ethiopia xiriir joogto ayaa weligood ka dhaxeeyay Ethiopia waxay ka mid tahay wadamada midowga Afrika ee runtii ciidamadoodu ay naftooda u hurayaan ee ka mid ah howlgalka ATMIS AMISOM hore loo oran jiray oo Soomaaliya gacan ka siinaya sidii nabadgelyo mar kale loogu soo dabaali lahaa Ismaaciil siyaasadda dowladdan cusub ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre u degsan ayaa waxa ay tahay Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah marka Ethiopia Djibouti Kenya saddexda wadan ee dariska nala ah intuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu xilka qabtay waa uu soo wada booqday hogaamiyaashooda waliba Kenya oo nidaam cusub hadda madaxweyne cusub la doortay Djibouti oo iyaguna walaalaha iyaga ah intaasi oo dhan waxa uu doonayay sidii Soomaaliya ay xiriir toosan oo ku dhisan istixgelin oo ku dhisan heshiis ay ula yeelan lahayd wadamada caalamka kuwa gobolka iyo kuwa maaragtay qaaradaha kaleba ahmiyad yahay dagaalka lagula jiro al-shabaab dowladda Soomaaliya inay xiriir la yeelato deegaanka Soomaalida sidee idin caawin kartaa is leedahay dowladda deegaanka Soomaalida dagaalka lagula jiro al-shabaab si weyn sababtoo ah labada dhinacba horta dadku waa Soomaali jinsi wadaaga dhaqan wadaaga luqad wadaaga diin wadaaga runta marka laga hadlo qofka Soomaaliga ee dhibaatadu ay ku gaarto xuduudda dhinaceeda kale ama dhinacan kale qofka kale waa uu dhibsanaya intii hadda dagaaladu ay ka jireen waliba gobolkan Hiiraan mas'uuliyiinta dowladda deegaanka Soomaalida wadankan waxa ay gargaar u fidiyeen haddii ay noqon lahayd gawaarida lagu qaado dadka dhaawaca haddii ay noqon lahayd cunto biyo intuba dadka dagaalamaya ee deegaanka iyo ciidamada Soomaaliya marka iskaashi weyn ayaa halkaasi ka iman kara maadaama wax lala dagaalamaya ay tahay hal cad oo runtii ah cadow Soomaaliya iyo Ethiopia kaliya aan cadow ku ahayn gobolkoo dhan iyo adduunkoo dhan marka in la cirib tiro oo argagixiso laga suuliyo gobolka runtii waa mid labada dhinacba dan u ah ayna iska kaashan karaan afhayeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Farxaan Jimcaale oo waramayay wariye Ismaaciil Ibraahim Buurgaabo jigjiga kula kulmay ayuu kaasi ahaa halka dhageystayaal wali nagala socotaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay dhegeystayaal bal haatana aynu eegno wararka kale wacyigelinta ah cudurka kansarka ku dhaca naasuhu waxa uu ka mid yahay noocyada ugu badan ee haweenka dunidu dhintaan bishan Oktoobar ayaa dunidu haddaba u garatay inay noqoto ta lagu wacyigeliyo dumarka halista cudurkan iyo siyaabaha looga hortagi karo iyo haddiiba qofka uu ku dhaco sida uu dabiib u heli karo halista kale jirta ayaa se waxa weeye in dumar badani aanay wax fikrada ka haysanin cudurkan isbitaalada dalalka saboolka badankoodana aan laga helin qalabka lagu baadho iyo dawadaba wariyaha BBC-da Faadmo Macalin Abuukar ayaa warbixintan ku eegaysa waayaha gabadh Soomaaliyada oo cudurkani ku dhacay kama dambaystiina xal ku noqday in labada naasba laga gooyo alxamdulilah wallahi qaali alxamdulilah aan dareemayaa walaalo markaa alxamdulilah tani waa sheekada xanuunka badan ee Fawziya oo naga codsatay inaan magaceeda koowaad uun adeegsano waa hooyo haysataa 3 caruur ah haatanna ku sugan dalka Turkiga oo ay 2 sano ka hor u tagtay xanuunka haleelay naaska balse aysan markaa aqoon wuxuu yahay waan seexday waan la soo toosay adigu naaska adigu uun bararsan adigu uun xaaladiisuna ay si kala tahay adigu markuu ayaamayro joogin buu barar keenay bartamihii sanadkii 2020 oo dunidu ay la daalaadhacaysa xanuunka safmarka ah ee COVID-19 ayay ahayd markii ay xanuun ka dareentay naaska bidix waxaanay markaa Fawziya oo 32 sano jir ah ku noolayd magaalada Burco ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Somaliland xilligaana waxa ay nuujinaysay gabar 10 bilood jirtay
markii ay isbitaalada magaalada Burco ku wareegtay waxna xanuunkeeda laga qaban waayey ayay dhowr jeer safar ku tagtay Hargeysa oo caasimadda Somaliland ah iyo Addis Ababa oo Itoobiya ah oo ay rajaynaysay in ay dawadeeda ka hesho. maxay hayday markii hore waxaan tagay Itoobiya markaan tagay adigu 18 cishaan ku maqnaa bacdeen waan soo noqday waxay ku dhahayn kabshniya xasaa ku haya aansku xoog buu ii bararsanaa waan ka soo noqday Burcaan ku soo noqday haddana waan noqday Hargeysaan ku noqday adigu markii waan haddana adigu xaaladayda haddana Burco oo dhan dhameeyay haddana Hargeysaan ku noqday Hargeysa haddana igu tiinaaska waxa kaaga jirta Burca kaaga jirta. intii ay safarka ku jirtay waxaa calool gashay gabadha ugu yar caruurteeda oo haatan sanad iyo 8 bilood jirta Fawziya oo markan xaamilo ah xanuunkiina maalinba maalinta ka dambaysa uu ka sii darayo ayaa ku laabatay Hargeysa iyadoo dhaqaatiirta weydiisatay bal in ay markaasi siiyaan talo ah halka ay daaweyn ka heli karto. anagu waxba kama qaban karnay yiraahdeen waxaan ku yiri Itoobiya haddaan ka imi waxay ku yiraahdeen Itoobiya ay ama adigu meelahaas unta bas markaa Turkigan soo baxay. inkastoo aysan markaa Fawziya u fududayn inay Turkiga tagto sabab la xiriira dhanka qarashka iyo weliba iyadoo haysata caruur yaryar oo aysan doonayn in ay ka tagto haddana waxa ay ogeyd in ay ku qasban tahay waxa ay caawinaad ka heshay bulshada gudaha dalka iyo dibadda oo ku caawiya qarash ay ku tagto Turkiga waxa ay haatan inooga sheekeynaysaa wixii ay la kulantay markii ay tagto halkaasi. waxaan tagay dhaqtar baan tagay adigu daacadii xigamay qaadin adigu keeniyah bay siiyeen ilmihana loo baqayay bacdeen adigu ilmihiiba sidkiisa iska gaaray adigu markaan xoogaa bil joogay adigu 4 bilood meelahaas markaan tagay kiiba codadii xiga qaaday shaybaarkii oo maqan baa inanta yar lagu qalay way ka soo waaday markaan 10 cisho aan umulana ayaa jawaabteedii soo baxday. Fawziya waxaa loo sheegay in uu hayo kansarka naasaha isla markaana uu ku faafay labada naas sidaa daraadeedna loo bilaabi doono daaweyn haddii wax laga qaban waayana waxaa loo sheegay in laga jarayo labada naas. haddaad dhibatana waxaansi ilaahay baa kuu qoray waa la dhimanayaa haddii ilaahay kuu qoray inaad noolaatana waad noolaanaysaa niyada labadaaba waa gashaday. warkaasi naxdin ayaa uu ku noqday Fawziya oo isu diyaarinaysay nuujinta gabadheeda yar oo 10 cisho uun dhalanayd isla markaana aysan weli arkin oo markii ay dhalatayba loo geeyay reer Soomaali ah si ay u xanaaneeyaan inta ay xaaladda Fawziyo ka soo roonaanayso. dawada lay bilaabay dawadii baan kooma ku galay caana meel baan kooma ku jiray habeensteedood maalmood ugu 14 caana ma isku soo wareegtay baan kooma ku jiray dhakhtarka joog markii dawadu dhamaatay labadaba waan ka tirinaabay. Fawziya xanuunkan kama aysan haysan wax fakar ah waxaase jirtay in qof qoyskeeda ka tirsan xanuunkan ay qabtay. eedadii baa adigu beri fog laga jaray naas laga jaray. haddii ay wax aqoon ah u lahaan lahayd xanuunkana kansarka naasaha oo ah nooca kansarka ugu badan ee ay u geeriyoodaan haweenka adduunka oo dhan sida ay dhaqaatiirtu sheegeen waxa ay aaminsan tahay in xaaladeeda aysan heerkan gaari lahayn. rajadeeda haatan ugu weyn Fawziya waa in gudaha dalka laga helo isbitaallo iyo dhaqaatiir u diyaarsan daaweynta xanuunkan kansarka naasaha. qof walba waa qof kala quban moogtay aniga maanta qof waxaan ku uri wadankii ilmo yaryar beebiya midna aduga 5 sano jiro midna 40 sano aan weli buuxin hooyada iska xanuunsanaysa ay hayso oo qof anigii isoo korisayba ay tahay walaahi waan jeclaan lahaa wadankii haddii dhaqaatiir la geeyo iyo isbitaalyo wax laga helayo alxamdulillah. warbixinta xanuunkalena waxaa inoo diyaarisay Faadumo Macalin Abuukar waxaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC da dhageystayaal bal haatan wararkii Afrikada kale aynu sii eegnay. dowladda Itoobiya ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ay diyaar u tahay baaqa midowga Afrika iyo beesha caalamka ee ah in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka aloosan gobolka Tigray. hase yeeshee waxay dowladdu sheegtay oo ay warbixintaasi ku xustay inay ka go'an tahay inay gacanta ku dhigto madaarada iyo xarumaha kale ee muhiimka ah ee gobolkaasi ku yaala iyo sidoo kale inay marinada duulimaadyada hawada ee gobolkaasi si gaara u ilaalinayso. haddaba isweydiintu waxay tahay maxaa go'aankan keenay. Faysal Roble oo ka faallooda siyaasadda geeska Afrika ayaa faaqidaya ugu horreynse waxaan weydiiyey waxa keenaya in dagaalku socdo iyadoo labada dhinacba ay sheegayaan inay xabad joojinta diyaar u yihiin. waxa u sababa oo kowka ah in dowladda Itoobiya ay iyadu dawlad tahay kursigii oo yudana ay ku fadhido marka arrimahaas oo kala dhacaan kollaba waxa loo sadbadin doonaa gogosha ballaarana la siin doonaa waxa Itoobiya leedahay iyo waxay sheegato.
waxaa jirta warbixin ay soo saartay dowladda Itoobiya oo ay kaga helcelinaysay arrinkaasi ah in xabadda la joojiyo oo ay sheegtay inay u heelan tahay dhanka kalena waxay carabka ku dhufatay inay qabsan doonto goobaha muhiimka ah ee federaalku marka horeba uu ka talin jiray ee dowladdu ay lahayd sida madaaradii iyo hawada oo si gaar ah isha ugu haynayso ma tuhun baa jira in wax gaara iyo diyaaradahan ay dowladdu ogeyni ka soo degaan oo kaalmo u sida Tigreegu wax tuhun oo caddayn karo hadda ma jiro laakiin inta dagaalku socday iyo intii ku horeysayba dowladda Itoobiya waxay leedahay dowlada aanay magacooda aanay sheegin oo raba in ay burburiyaan midnimada qarannimada Itoobiya ayaa dagaalka ku jira wax cad may keenin si cadna ugamay hadlin magacda dalalka ay sheegayaan may sheegin marka arrintan cusub ay hadda soo saareen kuwaasay la xidhiidhaa waxay leedahay dad aan Tigreega ahayn oo dalal Itoobiya raba inay burburiyaan ayaa ka soo dega soona gala wadanka manay caddayn TPLF iyagoo laftoodu Eritrea bay farta ku fiiqaan oo leeyihiin ciidamo huwan oo la socda kuwa Itoobiya ba iyaguna duulaan nagu haya wararka qaarna waxay sheegayeen inay ku soo dhawaadeen magaalada Shire arrintaasi nabadda miyay sii fogeynaysaa ku luglaanshaha Eritrea way sii fogeynaysaa arrinta Eritrea inay gashay iyada shika kama jiro waa ku jiraan manay dafirin ciidamadoodan hadda xooga badan ee soo weeraraya Shire waa ciidamo Eritreana bishan aynu ku jirno xaruntii laga xukumayay lagana maamulayay duuliyayaasha Itoobiya waxa loo wareejiyay Asmara diyaaradaha garaacaya Shire waxay ka soo duulayaan airportka Asmara oo u dhow meesha Shire haddana waxa la sheegayaa in Shire ay gacanta u gashay uwantii xoogaga Eritrea Itoobiya marka Eritrea oo caddahay sababta ay war hoos ahaan uga soo baxay ururka midowga Afrika oo oranaya in ciidamo nabadgelyo oo United Nations la keenana waxay ka dambeysay arrinta in Eritrea dagaalka si xoogan ay u jirto arrintaad carabka ku dhufatay ciidamada nabadgelyo ilaalinta in la keeno midowga Afrika uu sida u doonayo ma kula tahay inay dowladda Itoobiya aqbali doonto haddii ay aqbashana wadamadeebaad u badinaysaa inay ka iman doonaan journalka la yiraahdo reporter oo asaaba ka soo baxa oo luqadda Ingiriiska ku hadla ayaa maantadayada idinka shalaydeeni arrinka qoray wuxuuna qoray warka waxa laga soo xigtay buu yiri ilo aad iyo aad xogogaal ah kana tirsan midowga Afrika oo Basanjo iyo ninka madaxa ka ururka Afrika ku dhow in ay dalka laga keenay ciidamadana la cadeeyay oo noqonaya dalka South Africa laakiin huwan calankii iyo koofiyadii jimciyadda qurumaha dunida ka dhaxaysa marka arrintaas durbad magaalada way soo gashay Itoobiyana diidma kamay bixin manay diidin arrintaas inay runtahay inay beenta dadka qaar baa qaba in arrintaasi ay riixayaan wadamada reer galbeedka oo Itoobiya qudheedana isku fiicnaayeen marka iminka ma waxa muuqata sansaan ah in Itoobiya xukuumadeedii cadaadis saa'id la saarayo walaalha cadaadis saa'id weegan hadalla badan oo ka soo baxay dalalka reer galbeedka Mareykanka Australia iyo inta EU-da oo dhan waxay intuba ku cadaadinayeen dalka Itoobiya in dagaalka la joojiyo wada hadalladii dib loogu noqdo wada hadalladan Axmed Shide uu u joogo Washington ee ku saabsan deeq bixinta iyo lacagihii deyntii in Itoobiya laga maareeyo oo ilaa imika cadaadis lagu hayo Axmed Shide iyo waftigiisa waxa kow ka ah in lagu isticmaalo deeqahaas iyo lacagahaas Itoobiya miiska loo soo fariisiyo marka runtii adduunku hadda wuxuu si cad uga hadlay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa odayga haystaana oo shalay to sheegay in Itoobiya meeshii ugu xumayd intii ay jirtay ay maanta marayso marka arrimo cakiran baa jira Itoobiyana runtii hadda dagaalada cusub ay wado iyo hadalkii cadda ay soo saartay aad sheekada ku bilowday waxay rabtaa intaan wada hadallada loo soo fadhiisan inay ka gaarsiiso inay magaalooyinka waaweyn iyo hawlbowlaha xagga ciidamada Tigreegu meelahay degan yihiin in gacanta ku dhigto iyadoo magaalooyinka haysa markaa in wada hadalladii dib loo bilaabo Faysal Cabdi Rooble oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika ayuu kaasi ah oo khadka telefoonka dalka Mareykanka igu warramay halka dhageystayaal wali nagala socotaana waa BBC bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka
bbcsomali.com waa halka ugu horaysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta. waa tahay dhegeystayaal bal haatan aynu eegno wararkii ciyaaraha aynu ku bilowno. weeraryahanka kooxda Real Madrid Karim Benzema ayaa ku guuleystay abaalmarinta ciyaartooyga ugu fiican sanadkan ee FIFA, waana markii ugu horeysay ee uu abaalmarintaasi helo. Benzema waxa uu 46 ciyaarood u saftay kooxda uu u safto ee Real Madrid, waxaanu dhaliyay 44 gool, waxaanu horseed u ahaa guushii ay kooxda Real Madrid ku hanatay koobka horyaalka La Liga ee dalka Spain. Ibrahim Geedo Cawaale ayaa faahfaahinta inoo haya. xaflad lagu qabtay Paris xalay ayaa waxaa lagu abaalmarinaya ama lagu qabanaya xafladda abaalmarinta loo yaqaano Ballon d'Or oo ah abaalmarinta shakhsiyadeed ee ugu weyn dhinaca kubadda cagta, waxaana jirada France Football ay siisa abaalmarintaasi sanad kasta ciyaaryahanka ugu fiicnaa xilciyaareedkii dhammaaday dhinaca kubadda cagta. waxaa u sharaxnaa Karim Benzema, Mane iyo sidoo kale Robert Lewandowski. waxaana abaalmarinta ku guuleystay Karim Benzema oo horeba loo sii saadaalinayay maadaama bandhig fiican uu ka sameeyey kooxda Real Madrid xilciyaareedkii dhammaaday. Benzema ayaa Real Madrid kula guuleystay Champions League iyo sidoo kale horyaalka Spain La Liga, labada jeerna gooldhalinta ayuu qaaday. bandhigiisii ugu fiicnaa ee shakhsiyadeed intii uu kubadda cagta guda jira ayuu sameeyey Karim Benzema dalka Faransiiska u dhashay. toddobaadkan haddii kulankii adkaa El Clasico loo yaqaanay Barcelona Real Lexmara ayuu gool ku lahaa. waa ninka hadda hogaamiye Real Madrid ee kabtanku ah, waxaana saddexda sare ka maqnaa markii ugu horeysay tan iyo 2006 xidigaha Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo isku dar abaalmarintan ay ku guuleysteen 12 jeer 16 sano la soo dhaafay. Messi 7 jeer ay ku guuleystay, waana ninkii ugu dambeeyay sanadkii hore qaaday abaalmarintan, asaga sanadkan laguma soo darin. ciyaaryahankan Karim Benzema waxa uu noqonayaa ciyaaryahankii 8aad oo Real Madrid isagoo ku sugan ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or ee jirada France Football ay bixiso. Real Madrid waxa ugu dambeysay abaalmarintan 2018 markaas uu ku guuleystay Luka Modric, iyadoo hore ay ugu guuleysteen xidigaha Cristiano Ronaldo iyo sidoo kale Zinedine Zidane oo hadda tababara isla markaana ahaa ninka guddoonsiye abaalmarinta xalay xidigan Karim Benzema. habeen fiican ayay u ahayd Real Madrid. sidoo kale dhinaca gabdhahana waxaa Alexia Putellas oo u ciyaarta kooxda Barcelona ee sanadkii labaad oo xiriir ku guuleystay abaalmarintan Ballon d'Or loo yaqaano. jirada Faransiiska France Football ayaa abaalmarintan bixisa tan iyo sanadkii 1956. waxaa 10 sano oo intii u dhaxaysay 2010 ilaa iyo 2017 ay ku lamaaneed abaalmarinta bixiso FIFA xiriirka kubadda cagta adduunka ee xidiga adduunka loo yaqaano. hase yeeshee dib ayuu soo ceshatay France Football jiradaasi abaalmarintan, waxaana codad ay ka qaadaa ciyaartooy hore, kabtano iyo wariyaal iyo sidoo kale dadweynaha si ay ugu dambeyn u soo saaraan 30 nin ee u sharaxan abaalmarinta. Karim Benzema ayaan hadda sidaasi ku ah xidiga adduunka ugu wanaagsan kubadda cagta sanadkan 2022. wararka kale dheeraadka ciyaarahana waxaa ka mid ah dhegeystayaal in kooxda Aston Villa ay doonayso inay la soo wareegto ciyaaryahankii aan idhaahdee tababarihii hore ee kooxaha Tottenham iyo Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino oo ay doonayso inuu hoggaanka u qabto kooxdeeda. intaas ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddii subaxnimo. waxaynoo ballanaa 2 duhurnimo inta ka horeysase waa dhammaantayo dhammaantiin idin leh amaan Allah.